warbaahinta Soomaaliya halkan joogta aad iyo aadan idin salaamaya bulshada Soomaaliya oo aad wax u tabin doontaan waa salaamaya meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalnay golaha midowga murashaxiinta ay ugu talagaleen xaaladaha dalka iyo meelaha ay marayaan iyo dadaalada ay wadaan inay wax uga tilmaamaan ugu horeyn bulshada Soomaaliya meel kasta joogto waxaan u rajaynaynaa guul iyo baraare iyo barwaaqo abaaraha meelaha ay ka jiraan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarahaas ummadda ka qaado taa ka bacdi annagu haddaynu nahay golihii midowga murashaxiinta waxaan wadnay dadaalo nabadeed oo runtii waqti badan aan ku bixinaynay oo ay hareereynayeen had iyo jeer dulqaad iyo fahamsanaan aan fahamsannahay xaaladda dalka uu marayo dadaaladaasi is-umaatinadayni iyo la kulankii bulshada qaybaheeda kala gedisnaa iyo daneeyaasha arrimaha Soomaaliya ama saaxiibada Soomaaliya intaba aan wadnay saakayto waxaan dhaqdhaqaaq ugu dambeeyay wuxuu ahaa waxaan booqasho ugu tagnay halka ay ku shirayeen maamulada dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed madaxweynayaashooda waan la kulannay runtii waxaan u gudbinay dareenka aan ka qabno dalka xaaladda uu ku sugan yahay doorashooyinka iyo hagardaamada soo gaaray xilliyadii la soo dhaafay habka aan u aragno inay wax ku xalismi karaan konsaynka aan arrimaha qaar ka qabno waxaanu arkaynay xilli doorasheedkii daahay in dowladda dhexe gaar ahaan madaxweynaha hadda xilka ka dhammaaday oo isagu sabab u ahaa inay meelmari weyso oo maalmihii ugu dambeeyey oo walaayadiisa ay soo afjarmayso oo shirkii dhuusamareeb ka soo dhaqaaqay kasoo dhaqaaqidaas ma aanan ka horna marar badan wax kasta oo doorashooyinkaas ama dib u dhigi karo ama meesha ka saari karo amba hagardaamayn karo in lagu dhaqmay hadda la soo gaaray xilli xasaas ah ay ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay inay hanaankii ay ku soo heshiisay oo dib u heshiisiinteeda lagu saleeyo 4 sanaba mar in doorasho dhacdo ay tahay in la meel mariyo arrinka waxaan ku boorinay walaalaha meesha ku shirayay inay kaalinta mugale oo macnaha leh kaga aadan ay ka qaataan arrin doorashaan la isla soo dhaweeyo annagu haddaan nahay golihii midowga murashaxiinta waxa kale yahan qabna ay tahay gacanta amniga ama hay'adaha gacanta ku hayna hay'adaha amniga amarka iyo maaragtay hogaamintaba ku yeelanayso in ay noqoto gacan midii hore aan ahayn walaalkeen maxamed cabdullaahi farmaajo gacantiisa in laga wareejiyo gacan aan ammaano ku baranay ma ahan gacan aan uturid ku baranay ma ahan gacan aan wixii la isla lahaa in la isla leeyahay ula dhaqanto ma ahan gacan dad ku maqan yihiin waaye dibadbaxa ku maqan yahay dad siyaasiyiin ay ku maqan yihiin meelo badan oo deganaasha ay ka jirtana deganaashadii ka saartay maalin la arkay wixii iyadu ay dumisay marka dambe ka sheekayso taa waxay ahayd kulankii aan la yeelanay golaha ama shirkii madaxweynayaasha maamul goboleedyada saaka ay ku shirayeen hotelka airport hotel taas markaan halkaas uga baxno qodobka labaad aan rabnay inaan maanta idin sheegno waxay ahayd arrimaha baarlamaanka ka socda runtii baarlamaanka xilligiis waa dhammaaday waxa ay wax ku bedeleen waa arrin hadda dastuur ka khilaafsan si jiritaanka iyo meesha inay joogaan waa la gartay laakiin waxyaabo waaweyn oo amba wax kordhin ah amba waxyaabo kale ah xilligeedii lama joogo awooddeedii sharcina ma ay laha warbixinta aan helaynay oo meesha nagu soo gaaraysa waxay ahayd u heelanaan sharci jabin ah dad kala dirid ah dadka isku horkeenid ah muddo u kordhin ah maamul 4 sano aan loogu bogin maalin kale loo kordhin la yiraahdo gaadmo ah kala wadid ah isla socoshadoodii in la dhaawacayo ah dalkan hagardaamo wixii ka dhaco waxna waa adawaad iyo meelo loo maro waxna waa cidda soo alifto waxaan aaminsanahay oon ognahay oon hubinay in ay go'aan iyo abaabul ka yimid madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inay ahayd runtii aadaan uga soo horjeednaa aadaan u cambaaraynaynaa in la isku dayo in xilli xileedkii dhammaaday la soo nooleeyo ilaahay baa wixii dhinta soo nooleeyo laakiin waa soo noolaadeen markii la yidhahdo waa wax sharci darro ah oo aan la qaadan karin taasna bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan leenahay mana idin anfici doonto cidda samaynaysana ma anfici doonto aayatiinka ummadda Soomaaliyeed dan uma ahan taa markaan halkaas uga baxno dalka Soomaaliya meesha uu socda ayaan waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaagno dalka Soomaaliya annaguna meel baan u rabnaa Soomaalidu meesha bay nala rabaan madaxweynaha xilkiisu dhamaadana meel kale u rabaa waxaan u rabnaa deganaanshaan u rabnaa nabad baan u rabnaa miisku dhamaata xaaladooda in laga dhigaan rabnaa heshiis inuu ku dhamaadaan rabnaa waxaan rabnaa waxay ku soo heshiiyeen dib u heshiisiintii carta lagu soo heshiiyey oo 4 sanaaleyna ahayd 4 sano mar in la isdoorto dastuurkan qoran inaan ku dhaqanaan rabnaa dadka Soomaaliya waxaan rabnaa cidii markaas mas'uuliyadda madaxweynimada timaado dhaxal madaxweyne looga daydo oo dulqaad iyo maxaan ku yiraahdaa isku hayn iyo isu maslixid ah in laga dhaxlo sidii kuwa hore looga dhaxlay laakiin hadda 4 sano tagtay waxaan dhaxlaynaa hagardaamo iyo dhibaataan dhaxlaynaa marka dadka Soomaaliya anagu waxaan rabnaa
arrimaha aan soo sheegnay doorashooyinkii nabaddii wada hadalkii isku dhammaatadii wada socodkii isdhowridii isdil la'aantii afar sanaaleydii intaas baan rabnaa nidaamka hadda joogo amba madaxweynaha hadda joogana waxa uu rabaa ki yimid oo kamid dhigaha ahaa inuu noqdo doorashooyin hal mara dhacay oo xor iyo xalaal ku dhaca asaga keenay iyo inta kale xoog lagu xayuubiyo xoog lagu cajajuubo la dirqiyo maxaan ku yidhaahdaa arrimo noocaas ayay rabaan waxay ka fikirayaan kordhin bay ka fikirayaan arrinkaasi soomaaliya aaminideeda buu khatar ku yahay isla socodkii buu khatar ku yahay amnigii buu khatar ku yahay sameeyo buu khatar ku yahay maxamed cabdullaahi farmaajo khatar ku yahay